rabnaa inaan la wadaagno dhalintaas Soomaaliyeed mustaqbalka Soomaaliya ah oo bixiyay saakata ifafaalaha qaranka Soomaaliya meesha uu ku sii jeedo iyo daayirta Soomaaliyeed mustaqbalka iyagu iska leh bacdallah ee muujiyay waxa ay rabaan in dawladda Soomaaliya arrinka ka jawaabto ka hor intaan fal dambiyeedkii Muqdisho ka dhacay ee lagu dilay Maxamed Maxamuud Sheekh Cali inta aanu dhicin oo dawladdu qalab intay rakibtay duubtay oo kaamirooyin ay qabteen iyo dambigu marka uu dhacay ka bacdi dawladdu inay sameysay dabagalkaasna dhagar qabayaashii lagu helay markii ay isku dayeen inay meesha ka fakadaan ama goobta ka fakadaanna ciidamada amnigu ay hawshoodii ka qabsadeen dhanka kale bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan daayirta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago dalka kan waa dalka kaliya ee Soomaalida ay ku heli karaan waxyaabaha qofka bani aadamka ah ku naaloodo amniga iyo amaanka meel uu koro oo ku kobco wax ku barto oo ka shaqeyso ku dhisto oo ku dhaqmo oo wax ku dhalo meel bulshada Soomaaliya qaado waa halkan waxa isdiidan jiritaanka shabaab ay jiraan iyo falsafada ay ku shaqeynayaan iyo arrimaha iyaga ah in la helo siyaasi daraadeed dadka Soomaalidu ma ahan wax ay kala dooran karaan inay iska daayaan iyo inay la diraan laakiin waa wax jiritaankooda la xiriiro si dawlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo nabad ah oo lagu noolaan karo oo aan ahayn meelaha adduunka ugu khatar badan meel kamid ah waxa ay ku xiran tahay in shabaab la waayo